kalfadhiga sideedaad kulanka gaarka ee shanaad ajandaha waa hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulamada gaarka ah ajandahood in la ansixiyo uma baahna sida uu qabo qodobka 9aad xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha mar walba wuxuu la hadli karaa golaha shacabka ee baarlamaanka waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed inuu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa soo dhaw mudane madaxweyne bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa xildhibaanada sharafta leh xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya bahda saxaafadda dhammaan marti sharafta kale waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey waxaan sii xoojin doonnaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dawladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha dawladda shaqadii ay qabteen xilqaanka ahayd volunteerka ahayd aad ku dhisteen xarumaha dawladda sida maktabadda qaranka tiyaatarka madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan aad baan idinkaga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafuridda leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhabar adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay idinkoo si xilkaasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah kana shaqeeyay dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay kuwaas oo buddhig u noqonaya dawladnimada dalkeenna waxa kale oo mahad celin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada ka hortagga iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga ah soo celinta astaamihii qarannimada Soomaaliyeed ilaalinta madax bannaanida Soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo geeska Afrika ah run ahaantii 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta aayaha danaha ee dawladnimadeenna raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka sidoo kale waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka
iyo tan gobolka aan ku noolnahay. waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udub dhexaad u tahay jiritaanka qarannimadeenna, iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogtaynta laamaha kala duwan ee dowladda. sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho, isla markaasna uu noqdo marjaca iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ay ku leeyihiin dowladnimada dalka. waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan, haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna. baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli muddaxiloodkooda uu weli sii jiro, si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. mudanayaal iyo marwooyin, 28 Diseembar 2019 waxaad ansixiseen sharci dalka u jiheynaya doorasho qof iyo cod ah, si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay-adaha dowladda. kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajooda, 26 Sebteembar 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 Sebteembar 2020. sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaaggii aanu dalku la rabnay. mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 Sebteembar 2020. dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku astaysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaar ah, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 bay dhab lagu gaaray. hase yeeshee waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeeddooyin gaar ah iyo dana guracan. mudanayaal iyo marwooyin, 12 Abriil 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan.
mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran. magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhallinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? ka dowlad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonnida caasimadda, iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lexjeclo weyn ayaa iga haysa. waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi quraan ka bilaabay, dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray, aan ku weynaaday. macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye. waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo waddani ahna uu rabaa caasimaddan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. siday ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga, dad waala ah, dad aanan wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. taasna weeye waxaa la yidhahda metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimaddan noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. run ahaantii lama oggolaan karo in dalkeen iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabaddii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helinno xasiloonnida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan, aannu dhexdeenu ka xallisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay. allah ha u naxariisto intii ku dhimatay, intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo. xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay. waxaanu go'aansannay inaan xalka ku raadinno wada hadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeenna. mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horay u sheegay, xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo, iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay. shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, broseska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeynkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli. saas la isugu dhiibo
xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebteembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wada hadalka iyo is-qancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan dhallinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiinna maalkiinna dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteenna wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha aad u mahadsan yahay madaxweynaha xoogaa wuuna sugayaa xafiisku sii tegaya markaa wuu soo noqonaa markaan kulanka dhammaysano boqol iyo 40 xildhibaan waxaan ku furnaynaa aayadaha quraanka kariimka waxaana noo akhrinayo xildhibaan Sheekh Shaacir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
maanta ayuu taariikhdu tahay 1 bisha shanaad 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisii 16aad kooramka annaga waa 140 xildhibaan ajandaha kulanka waa codaynta ogolaanshaha hirgelinta sharciga number 30 ajandaha aanu codayno waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waxaad dhegaysateen khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo nuxurkeeda ahaa in dib loogu noqdo heshiiska doorashada 17 September si loo soo afjaro kala aragti duwanaanta xubnaha golaha wadatashiga qaranka isla markaasna loo dedejiyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaasi oo kale waxaad akhrisateen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku codsanayo in loo ogolaado in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17 September xildhibaanada sharafta leh arrintan hortaalla ma aha mid dad gaar ah muxaafid iyo muxaarad si gaar ah u khusaysa waa arrin saameynaysa amniga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan nolosha shacabka Soomaaliyeed golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka wuxuu mathalaa shacabka Soomaaliyeed wuxuuna u adeegaa dantooda wuxuuna ku shaqeeyaa danta dalka iyo dadka iyo diinta sida ay ku jirto mar walba heshiiska 17 September idinkaa hore u ansixiyey oo hadda looma baahna inaan ka doodno ilaan heshiis aan wax ka bedelayno wax ku darayno maaha xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha wuxuu codsaday in lagu noqdo 17 September maadaama sharciga 17 September waxba aan laga bedelayn aan waxna lagu kordhinayn jidka kaliya noo baahan inaan u codayno waayo marka waxaan codsanaynaa xogeeyaha inuu diyaar garoobo waa codaynaynaa waa codaynaynaa haa iyo maya u coday because heshiis wax ka bedeli maysa fariiso xildhibaan ya feeri horta aan isdhegaysanno heshiiska 17 September baarlamaanka wuxuu ansixiyey 26 September waa sidaasi fariista xildhibaanada sharafta leh fariiso xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed ee 17 September doorashada baarlamaanka inta ogol u codaynaysa gacanta taagto على صوت ريو على دجيو انت ديدن عن تاكد مجرى يا كامسي على سوق بيو codaynta markaan sheegno waxaa soo noqon doona madaxweynaha si uu ugu mahadceliyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo codaynta aan isdhegaysanno xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 September in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha xildhibaan diiday ma laha waxaa ogol u codeeyey 140 xildhibaan
sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 September sidaasuu ansax ku yahay waxaan sugaynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanada ugu mahadcelin mudane madaxweyne sida adiga aad codsatay khudbadaadii iyo warqadaadii aad guddoonka baarlamaanka u soo gudbisay baarlamaanka wuxuu u codayay in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September waxaan ku siinaynaa kelmadaadii ku aadanayd ansixintaas 17 September soo dhawo mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم قدومي ومحسنتين ومحسنتهاي هذه حلبانات شرفت له وحنكون فرح سنة هاي أنا كم هالعلنا يا حلبانات شرفت له إن تكون صوبيرتين كلاب كتنازل وأضمد الصوماليات وتنازل شيء هذا بقى سيان وقتي بدن نوغلو من dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 September iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajeynayaa inay hawshaas u guda gasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka annaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxno xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa arrin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaanba labadii kalfadhi oo ugu dambeeyey way isku furmeen oo baarlamaanka fasax ma gelin haddana lama geli doono waxaan rabnaa laakiin duruufaha jira awgeed kalfadhiga ma xirmi doono maadaama aan ku jirno aakhir shahr ramadaan aan ku jirno ciidina ay soo dhowdahay waxaan qorsheynay xildhibaanada bil fasax inay qaataan oo berrit ka bilaabanayso lana soo ciido bil kadib la isku soo noqdo kulanka annaga maanta halkaasuu noogu xiran yahay assalaamu calaykum